السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحنيهني سوماليدا وين قيبتيسي لحاد حلقتنا إن شاء الله وحين ku eegaynaa sooyaalka koritaanka aqoonta Soomaalida tirsiga nasabka ama abtirsiga Soomaalida marka loo fiirsado waxa laga dheehanayaa inay Soomaalida qaarkood jeclaysanayaan inay isirkooda ku arooriyaan Carab habdhaqanka iyo aqoonta Soomaaliyeedna ay yihiin Carab Afrikaanowday ee aanay ahayn Afrikaan Carabowday orahaha afka ama sheeko dhaqameedada Soomaalida waxa laga dheehanayaa in asalka Soomaalidu uu u laabanayo imaanshihii Maxamed Cabdiraxmaan Al-Xamiili oo ka yimi Yemen una soo doolay dhanka Soomaalida dabayaaqadii qarnigii 9aad ee miilaadiga isaga oo maangan faafinta diinta Islaamka waxana uu guursaday gabadh gaala ama Oromo ah oo u dhashay laba wiil oo kala ahaa Saab iyo Saamaal dhimashadiisa kadibna labadiisii wiil way kala tageen oo Saab waxa uu u dhaadhacay dhanka dhulka gudaha ah waxana uu la xidhiidhay dadkii madooba iyo Oromadii ninkii kale ee Saamaalna waxa uu waaday dhanka xeebaha waxana uu la xidhiidhay dadkii xeebaha oo waxa uu dhalay ubadka ay ka tafirmeen qabiilada Soomaaliyeed ee hadda jira sheekooyinkaas ujeedka laga leeyahayna waa in ummadda Soomaaliyeed maankooda dib loo dhaadsiiyo asalkoodii iyo isirkoodii ay ka soo tafirmeen ee Carabiga ahaa oo halkunka iyo asaaska ummadda Soomaaliyeed ma aha arrin si kedisa isaga dhashay ee waa natiijo ka timi hijrooyin iyo hayaano Carbeed oo iska soo daba dhacay lana xidhiidhay oo la falgalay dadkii Afrikaanka ahaa tabino maangaabnimo ah ayaa iyaguna soo tabinaya in qarnigii 9aad ee miilaadiga uu ka yimi Sheekh Daarood Ismaaciil ama Sheekh Jabarte ibnu Ismaaciil gacanka Faris uuna la kulmay dir Abgaal oo ah Saamaal ina adeerkii kaas ayaana u guuriyay inantiisii Daahira halkaasna waxa laga dheehanayaa tilmaana baaraysa in qabiilada Soomaaliyeed ee waaweyn ee dir iyo Daarood ay asal ahaan Carab yihiin sheeko dhaqameedyadaasna waxa ay sii abaarayaan in Isxaaq ibnu Axmed uu isaguna ka yimi jasiiradda Carbeed oo soo galay geyiga Soomaaliyeed qarnigii 12aad waxana uu guursaday laba gabdhood oo walaalo ahaa oo u kala dambeeyay waxana ay gabdhahaasi ka soo jeedaan qabiilka Mudar ama Magaadle guurkaasna waxa ka fircamay qabiilka Isaaqa ee ka midka ah qabiilada ugu baaxadda weyn waqooyiga dhulka Soomaalida Islaamku waayihii ugu horeeyay waxa uu kula darsay Kiristanka dhulkii Soomaalida iyo Xabashida ama Geeska Afrika horaanta xiriirkooduna waxa uu ku bilaabmay martigelin iyo magangelin ay saxaabtii muhaajiriinta ahayd ka heleen boqorkii Najaashi ee Xabasheed isla markiiba waxa uu warinkii isu rogay loolan iyo hirdan oo Islaamkii ayaa ku baahayay dhulkii Kiristanka iyo Xabashida waxana uu isu dhalan rogayba dagaalo dhanka ah jihaad ay muslimiintu wadaan oo ay marna isku difaacayaan marna furashada dhulka Islaamka ku baahinayaan dhanna ka ah argoosi ay Kiristanku ku cadgoosanayaan aakhirkii waxa dhalatay dhibaato dhinacyo badan oo kala goysay xeebihii Soomaaliyeed iyo dhulkii gudaha ee Xabashida waxana ay reebtay cadaawad iyo colaad qoto dheer oo lagu riiqmay waxana ay qolo waliba dhankeeda ka qabtay feejignaan ah inaanay ilbaxnimada qolada kale saameyn waxa ay kafadihii loolanku aakhirkii ku foorarsadeen dhinacii lagu duulanaa ee la weerarayay qodobkaasina waxa uu labadii dhinacba ku cadaadiyay inay gurmad dibadda ka dalbadaan waxana isa soo dhoobay Burtaqiis Cusmaaniyiin iyo Masaari dabayaaqadiina waxa uu gurmadkaasi ku soo afmeermay gumaysigii hadheeyay guud ahaanba qaaradda Afrika soo gelitaanka Islaamka ee dhulka Soomaaliyeed waxa uu la xiriiray hijrooyinkii iyo falgalkii aqooneed ee dhex maray dadka soo hijrooday iyo dadkii deegaanka ku neegaa iyo sidoo kale dadaalkii ay ku bixinayeen culimadii u horay ee ugu nadray noloshooda faafinta baaqa Islaamka iyo sidii ay Quraanka iyo fiqiga u baahinayeen waxana ay sheeko dhaqameedyadu soo tabiyaan in Sheekh Yuusuf Kaynuun oo ku magac dheeraa aw Barkhadle oo noolaa xilli ku aadan ku dhawaad 1000 sano ka hor kana mid ahaa xubnaha ku sheegan gaarsiinta diinta iyo aqoonta ee geyiga Soomaalida iyo Geeska Afrikaba isaga ayaana loogu abtiriyaa qabdhigaaleedka higaada Carabiga ee Soomaalidu wax ku barato ilaa haddana ay adeegsato qaabkaas ayuuna ku awooday inuu Soomaalida ku fahansiiyo ku dhawaaqa saxda ah ee Quraanka Kariimka ah waxana uu uga dhigay furaha gelitaanka afka Carbeed waxana uu bineeyay nidaamka Soomaalidu ay Quraanka xeerarka diinta iyo afka Carabigaba sida habboon ugu fahmayso inkasta oo baaqa Islaamka ee geyiga Soomaaliyeed uu xilli ku salaysnaa suufinimo haddana ma jiraan cadeymo muujinaya
inay suufiyiini joogeen ilaa laga soo gaadhayay qarnigii 15aad ee miilaadiga oo socotadii ibnu batuuta markii uu soo maray dhulka Soomaalida waxa uu kaga kaaftoomay sifayntiisa in suldaanka Muqdisho uu ku hadlayay af Carabi iyo afkii Muqdisho waxana uu xusay nolosha bulshada iyo xaaladda dhaqaaleed ee dadkaas iyo huga ay xidhaan iyo daaqsinadooda waxana uu yiri isagoo tibaaxaya Muqdisho dadkeedu waa dad jihaad oo waxa ay degan yihiin dhul bari ahaan ku xiriirsan gaalada madowga ah waana dad diinta dhankeeda ka dhisan madhabkooduna waa Shaafici intaas ayuuna kaga kaaftoomay socotadii ibnu batuuta sifaynta Soomaalida dhanka dadka Saylax hadii aynu eegno way diidanayeen iyagu madhabka Shiicada inkasta oo madhabkaasi uu ka dhex miirmay Soomaalida haddana wali waxay raadintiisii ku sii harsan tahay noloshii iyo aqoontii bulshada waxaana ka mid ah raadadka ka sii muuqda dabshidka bilowga sanadka la oogo ee loo yaqaan Nayruushka iyo in ilmaha habeenkaas dhashay dhakada dhiig loogu dhamooqo burburka madhabkaas Shiiciga ahi uu ka tirmay saaxadda geyiga Soomaaliyeedna waxa sabab u ahaa hijrooyinkii istaba joogga ahaa ee ay ku soo aadayeen Carabtu ee xambaarsanayd madhabka Shaaficiga ah waxana ku baahay dhulka Soomaaliyeed kutubtii madhabka Shaaficiga halka ay kutubta Shiicaduna aadka ugu yarayd maadaama Shiicada laftoodu ku yarayd dhulka Soomaaliyeed oo aanay lahayn xarun ay kaga faafaan dhulka Soomaalida oo gebigoodaba waxa ka joogay in yaroo Yamaniyiin ah oo ahayd imaamiyada Saydiyada ah intaasna waxa ku gidaanaa oo go'doomiyay oo hareeraha ka xigay madhabka Shaaficiga mana ay awoodin inay faafiyaan madhabkoodaas baaqa islaamiga ee geyiga Soomaaliyeedna xilli ayuu ku xidhmay oo ay calanka u sideen suufiyadu suufinimadaas lafteeduna xilli ayay ku salaysnayd qabyaalad awowayaasha lagu abtirsadana marka ay geeridooda muddo xooga ahi ka soo wareegto waxa loo aqoonsanayay wariyo wanaagsan inay ahaayeen dariiqadaas diimeedna xilli ayay ahayd tamidaysa Soomaalida dariiqadaasna waxa ay ku dhex baahaysay qabiilo kala gedisan sidaas ayayna kaga dhigaysay kuwo midaysan oo dhan u wada jeeda diin ahaan midowga dariiqadaas ayaana sababi jiray inay qabiiladaasi isgaashaan buureystaan oo xididaan oo xidhiidho tolmoon iyo aqoon bulsheed dhex marto maayada suufinimadu sida ay u muuqato waxa ay Soomaalida dhex qaaday oo ku awoodiisatay qarnigii 15aad ee miilaadiga waxana ay ilaha soo tibinaya qodobkani tibaaxayaan in Sheekh Ibraahim Abu Zarbay uu ka yimid dhanka Carabta oo isaga iyo 44 nin oo Carab ahi ay ku soo degeen Berbera si ay dadka dacwadda u gaarsiiyaan ayna kala tafaraaruqeen oo ninba uu dhan afka saaray isaguna uu jihaystay dhanka Herer sanadkii 1430kii halkaasna uu kula kulmay dad badan oo dhawaanahaas diinta soo galay sidii uu diinta dadka u barayayna uu halkaas ku allaystay qabrigiisina ilaa hadda waa meel la weyneeyo oo la siyaarto oo ku taala magaalada Herer sidoo kale waxay tibaaxayaan ilaha qodobka suufinimada ah soo warinaya in Jamaaluddin ibn Yusuf al-Hanafi Saylici oo ahaa ninka alifay dhiganaha nasb riwaaya li ahadith al-hidayah oo ku dhintay sanadkii 729 hijriga magaalada Qaahira uu isaguna ahaa culimadii suufiyada ee ku sheeganaa khulwada ama inay si gaar ah Ilaahay ugu cibaadaystaan naftooduna ay raalida ku ahayd inay u dadaasho dacwadda islaamka balse aanu raad muuqda oo la tilmaami karo kaga tagin geyiga Soomaalida markaad gorfayso dhiganaha Futuuxul Xabasha ee ka faaloonaya sidii loo furtay xabashidana waxaad ka dheehanaysaa in fikirka ay ka sinaayeen ee ku dhaadinayeen bulshada Soomaaliyeed uu ahaa fikirka jihaadiga ah imaamkii Axmed Gurey Ibraahimna waxa uu kaalmaysan jiray quraanka ragga xafidsani in ay waano iyo dhiirigelin u noqdaan colkiisa dhiganahaas furashadii xabashiduna waxa uu abaarayaa in ragga uu kaalmaysan jiray uu ka mid ahaa suufi saahid ah oo adduunka ka jeestay haddana qodobkaasi ma muujinayo inay suufiyadu firfircooni ku lahayd oo la falgelaysay dhaqdhaqaaqaas Axmed Gurey oo waxa uu imaamkaas Axmed Gurey ku kaaftoomay in calankiisa lagu xardho magaca xabiibkeeni Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo qaar kamida aayadaha Quraanka kumana uu xardhin wax magac suufi ah sida Sayyid Cabdulqaadir Jeylaani oo kale oo qaabkan waxa sameeyay kuwa yowgii isaga ka dambeeyay sidoo kalena dhanbaalada uu dirayay kama ay muuqanay wax suufinimo ahi iyada oo ay haddana caan ahayd in magaalada Herer ay ku sheeganaayeen dariiqada qaadiriyadu laga yaabaa in xeerka iyo dabeecadda dawladda jihaadiga ah aanay la falgeli karin in ay madaxda la kacaanna aanay ogolaan karin suufiyadu ay sababtu tahay
suufiyadu waxa ay fikradooda ku saleeyaan in nolosha la sahashado oo iscafin iyo jimcoonaan lagu wada noolaado. waxa ay badiyaan oo bineeyaan dugsiyada fikirka ku dhisan iyo kuwa fiqiga iyo caqiidada, halka dowladda jihaadiga ahi ay ku dhisan tahay fikirka oo laga midaysnaado iyo joogteynta iyo ku dheganaanta fikirada ah in dowladda la quweeyo oo la ilaaliyo kobaceeda. sidoo kale suufiyadu iyaduna waxa ay u baahan tahay oo tibaysaa nabad iyo xasilooni oo badanka waxa ay ku barbaartaa baabacada ama calaacasha dowladda, halka uu jihaadkuna raadiyo ee isku dayo inuu isagu dhiso oo unko dowladda lafteeda. sidaa awgeed suufinimadu dhan marka la iska taago waxa uu ku xidhan yahay magaalooyinka iyo reer magaalnimada iyo meelaha ay bulshadu ku badan tahay ee nabdoon. inkasta oo hogaamiyeyaashiisa iyo culimada uu ku tiirsan yahay ay xilligooda ku qaataan kelinimo iyo khulwo iyo inay dadka ka go'naadaan. dariiqadii ugu horreysay ee suufinimo ah ee soo gashay dhulka Soomaaliyeed waxa ay ahayd dariiqada qaadiriyada, waxaana soo raray Yamaniyiinta, Xadramiyiinta oo ah dadkii ka iman jiray deegaanka Xadramuut ee iminka Yemen ka tirsan, iyo carabtii kale ee degay Muqdisho, Saylac, Berbera, Baraawe iyo Marka. dhanka xeebtana qaadiriyadu way qaaday oo ku fiday, waxaana lagu tibaaxaa inuu ka mid ahaa raggii ugu horreeyey ee ka aasaasay dariiqada qaadiriyada dalka Soomaaliyeed, Shariif Abubakar ibnu Cabdilaahi al-Caydaruus oo dhintay 1503. ninkana magaciisu waxa uu ku soo arooray dhiganaha Futuuxul Xabasha. ragga isaga soo raacay ee ku caanka ahaa dariiqadanna waxaa ka mid ahaa Sheekh Xuseen Nuur oo loo yaqaano Xuseen Baalle. warino sheeko dhaqameed ahina waxa ay soo tibinayaan in uu Baqdaad uga yimi si uu u baahiyo dariiqadan qaadiriyada, uuna ahaa ninkii ugu horreeyey ee bilaabay shallaadka iyo durbaanka la tumayo, waxaana uu shallaadkaas ku bilaabi jiray laa ilaaha ila allah si uu usoo jeeto dadka iyo bulshada islaamka ah. iminkana qabrigiisii waa caan la booqdo oo ay siyaartaan 100,000 kun oo xabashi ahi sanadkiiba. siyaaradoodaasina waxa ay gelinsiisay boqorkii Xayre Salaase ee xabashida laftiisu in uu siyaarto qabrigiisa isaga oo cagacad. intaas ayaynu ku soo koobaynaa xalqadeennii maantana. wassalaamu calaykum.